السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي جالسين مركز سود هذا ما أنت وحن هروسي ودونا 10 إكسل كعب وحن قادونا 10 كنا في اللواتنات 10 كنا ما أنتوا حكوا بردونا سيدي لو سميا فونت سايز يو فورمات كده أما إفكتس كده كرايو فونتي كسودو 10 كنا ما أنت نمرك اللي جو إكسل أما الاستعمال فونتس مركو حليه ستيلس أما سايزس كل دول loo isticmaalo marka maanta waxaa baran doonaa kuwa ugu badan oo ah sida bold italics loo sameeyo underlines loo sameeyo iyo tagsiyada dimensionka marka imaan waxa la siiyay dukaan shop list uu sameeyay qofkii maamulaha loo diray hadda maanta wuxuu arki karaa notebook inuu wali wax nood aan ugu soo qorin oo siiyay shaygan in price hold sales kiisa uu yahay qiimahan tan underline ka la saaray macnaheedu waa arkaysa out of stock inay tahay waxaan line saaran desk lamp kan oo kale inuu new arrival yahay oo bold yahay oo cusub uu yahay sidoo kale calculator ka qiimahan in la iibiyo total intaas ay tahay marka si aan u sameeyno mid la mid ah kan oo kale oo arki qofka maamulaha u dirno si fiican u fahmi karayo xogta meesha ku qoran aan tagana qayb practice-ka waxaan la siiyay xogtaani ko horta waxaan soo saaranaynaa maxaa la yiraahdaa totalka markaan soo saarano waxaan leenahay total markaan sameeyno ko sale price kan oo siiyay horta kan waa ina bold karina si aan bold u dhigno laba xabba sameyn karna inaad halkaas ku dhufto bold aadid ama shortcut ka isticmaalay Ctrl+V inaad aadid Ctrl+V bold ku sameey doona si aad colorka u sameeyno waxaan saarayna note kan tan waxaan saari doonaa colorkaas bold haduu yahayna halkaas ayaa bold ka dhahaysa sidoo kale waxa out stock ah labadan shay out stock ayaga calaameyn doona tan waxaan dhigi doonaa Ctrl+1 waxaan ku soo bixi doonto dialog box-kan marka qaar waxa laga yaabaa number ama calaamad inuu taagan yahay waxaad tagaysaa font tan waxaa leedahay stroke out kadib wuxuu sameey doonaa calaamadaas ayuu saari doonaa si maamulku uu ogaado colorkiisa khafiif ayaan ka dhigaynaa tan waxaa leenahay sold out waaye ama uu ka dhameeyay hadaan italic ayaa saari karnaa si loo fahmo kanoo kale waa futuristic new arrival waaye maadaama uu yahay bold kadibna waxaa dhana underline Ctrl+B Ctrl+U kadibna waxaa siinaa color kale ayaa siinayna soo maamulku arko inuu sheegan cusub yahay una new yahay bold kadib calaamada xitaa guduud saar si uu arko maamulka sidoo kale price sale kan oo kale maadaama uu yahay bold Ctrl+B calaamadiisana waxaan kala saari karnaa kadibna waxaan dhigi karnaa italic Ctrl+I soo marka documentiga hadda maamulka loo diro wuxuu arki karaa shay walbo iyo qaabkiisa iyo waxyaabaha uu haysto kadib waa kala reyn karnaa qaarkood waxaan saari karnaa colorka aan u baahanahay soo maanta marka waxaa baranay sidee fonti style-keeda iyo colorka wax loogu bedeli karaa marka isticmaalaysa Microsoft Excel 10 inta si inuu u yahay insha Allah waa inuu 10 xiga